Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada Som Fit Channel. Hadda ayaan gymka imaanay sidaad u jeediin meeshaan xoogaa qabow ayaa jiro jaakado ayaan xiranahay waxaan sameyn rabnaa maanta jirka kore garabka xabadka iyo triceps oo la soconaysaan. Kusoo dhaw Som Fit Channel. Gymka soo galnay sidaad u jeediin maanta waxaan sameyn rabnaa upper body jirka kore garbaha xabadka مرة بدأ أنت عشان تمرنا مركا warm up ayaan sameynayna mar walba warm up inaan sameysid waa jirkaaga aad u diyaarisid culays ka soo socdo okay wana la tacaali okay exercise ugu horeeya aan ka bilaabayno waxaa waaye incline chest press laakiin culays ayaan qaadi rabnaa culayska ka bilaabayno marka hore culays series warm up yaa weli noo socdo just exercise سمينيس لكن أبدأ قصص حديد قصص على ربنا فأنت كربنا روسك حوار كذا ما هو الله حتى سمينيس اسكو دارنيا haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe saar gambaleelkana daaro nala soco comment share wad mahadsan tahay okay asxaabta hadda ayuu noo bilaabanayaa jimicsigeena caadiga ahaa waxaan sameynayaa saddex wareeg oo ah incline chest press 25 ayaan ku bilaabeynaa wareegga labaad kiilada ayaan wax yar ka yareynaynaa waxaan ka dhigaynaa asagana كوات 5 reps aan sameynaa kan labaad waxaan sameynaynaa 6 ayaan sameynaynaa kan saddexaadna 8 ayaan ka sameynaynaa programkan waxaa loo yaqaanaa reverse pyramid training oo ah marka ugu horeyso ayaad waxaad sameynaysaa culayska ugu horeeyo si nervous systemkaaga uu ugu diyaarsanaado culayska inta kale aad sii wadid kadibna kiilada ayaad wax yar yareynaysaa repska ayaad badinaysaa programkan mar dhow ayaan bilaabay oo waa program strength training ah inta badan waxaa sameyn jiray high reps oo waxaan ku sameyn jiray weightka oo yaraa culays yaraan qaadi jiray hadda waxaan rabaa laakiin culayska aan qaadayo inaan siyaadiyo okay markaana wareegi labaad ayaan sameynaynaa waxaan ka bixiyay kiilada wax yar hadda 22 bar iyo 22 bar noogu jiro waxaan ka sameyn doonaa 6 reps waa program aad u fiican haddii aad jeceshahay strengthigaaga inaad sare u qaadid waxaa loo baahan yahay inaad program leedahay mar walba aad gymka imaato oo goal reps aad leedahay iyo goal sets intaad iska imaato waxaa rabto iska sameyso looma baahno akhyaarta waxaa loo baahan yahay progressive overload yani weega kale waxaan isku dayi doonaa hadda inaan weightka kordhino ama aan repska badino mar walba progressive overloadka sidaas ayaa loo sameyn karaa weightka kordhin kartaa ama kiilooyinka aad qaadaysid ayaad kordhin kartaa waa sidaas asxaabta markana waxaan sameynaynaa exercise-keeni labaad waxaan sameynayaa shoulder press ama military press waa loo yaqaanaa isaguna wuxuu sameeyaa garbaha iyo aad u dhisaa sidoo kale asagana reverse pyramid training aan sameynaynaa oo weightka ugu culus ayaan ka bilaabeynaa kadib setka xiga weightka wax yar ka yareynaynaa setka xiga haddana waan yareynaynaa setka koowaad 5 reps ayaan sameynaynaa setka labaad waxaan sameynaynaa 6 reps setka saddexaadna waxaan sameynaynaa 8 reps military presska aad ayuu muhiim u yahay haddii aad doonaysid inaad garbahaaga sameysid sidoo kale muhiimadda waxaa weeyaan qaabka aad u qaadaysid mar walba iska ilaali hadda fiiri aniga markii aan qaadayo waxaan sameynayaa stable yani gluteskayga tight waaye murqahayga cajirada way taagan yihiin dhabarkayga ma nooxinayo kaliya waxa shaqeynayo shoulderska
sidaad u jeedid stability ayaa loo baahan yahay si muruqa aad rabtid aad u dhistid mar walba intaada kale jirkaaga kale inay taagan tahay kaliya muruqa aad ka shaqaysiisid. All right, wuxuu ahaa heavy set ayuu ahaa sidaad u jeedeen. wareegga xigo weightkan yare. Okay, wareegga labaad aan galaynaa wax yaran ka dhimay marka 6 reps aan laga rabaa hadda ka badi karno. Okay, that's it. First, سمينا exercise كأنه حقي سمينا dumbbell lateral raise. سمينا 6 ورق يبغى 6 إلى 2 طبعا بحياة. okay. Okay, markaana waxaan sameynaynaa exercise loo yaqaano dips. Dipska inta badan jirka kore dhan uu wanaagsan yahay, tricepska, xabadka iyo garbaha intaba uu saameeyaa. qofka markuu ku cusub yahay aad ugu adag yahay isma qaadi karo, 3 xitaa kama sameyn karo, laakiin bacdama aad sii hormarto waad sameyn karaysaa. Aniga markaan bilaabay dipska isma qaadi karin, haddana 20 kilo ayaan intaan dhabarka ku xirto ayaan waxaan ku sameeyaa 15 reps. Marka dipska iyo sidoo kale pull upka way ku adkaanayaan qofka markuu gymka ku cusub yahay. Marka mar walba hal labo ka sameey, waxa isku daydaa marka week ka dambeeya inaad wax ku sii dartid. Anaga hadda waxaan sameynaynaa 3 sets ayaan ka sameynaynaa pull upka. Markan waxaan ka sameynaynaa high reps, 20 reps ayaan ka sameynaynaa. Weight sidaa u badan ma gashanayno, sidaad u jeedid weight la'aan ayaan sameynayaa. And pull upka dipska mar walba waa muhiim, pull upkana sidoo kale waa muhiim. Pull upka dhabarku noqdaa, laakiin kan dips ayaa loo yaqaanaa. wuxuu aad ugu fiican yahay muruqa dambe ee gacanta, xabadka iyo garabka. markana waxaan sameynayaa wareegii labaad sidaad u jeedid. mar labaad waxaan ka sameynayaa 20 reps, haddana mar kale ayaan waxaan ka sameynayaa 20 reps oo saddexaad. haddii aad doonaysid jirkaaga qaybta sare inaad aad u dhisto, especially weighted dips ayaa loo yaqaanaa. markii culeyska aad ku xirato weighted dipska programkaaga ku dar. mar walba program lahow gymka ha iska imaanin oo wax ha iska qaadin, waa sidaa. asxaabta markana waxaan sameynaynaa exercise-kii noogu dambeeyay. waxaan sameynaynaa lying tricep easy bar. waxaa loogu talagalay muruqa dambe ayuu aad u dhisaa. haddii aad doonaysid gacantaada qaybta dambe inaad aad u dhistid, exercise-kan ku dadaal. gacanta waxaa la yiraahdaa 3deeda qayb, yacni 2 qayb oo kamid ah waa tricepka. bicepka ama muruqa hore inta badan gacanta uu iska yaryahay. muhiimadda waxaa waaye exercise-kan markii aad sameynaysid in weight aad controli karto aad ku samaysid. hadda aniga waxaan ku sameynayay 12 bar iyo 12 bar oo xagga ku jira iyo birto ii dheer ah. waan la qabsaday, laakiin marka hore aad asagana exercise-kan bilaabaysid 5 xitaa kuma sameyn kartid. marka soo uma jeedid sidaan u controlaya weight-ka markii uu soo degayo waa controlaya, koran u soo qaadaya. mar walba weight-ka control, looma baahno inuu ka dhaqdhaqaaqo. weight-ka control ayaa loo baahan yahay.
10 to 12 reps ka samaynaysaa culays buu filan gasho mar walbana control weight ama raba inaad sii dayso garab iyo wax dhaawac ka gaari kara mar walba control okay waxaan sameynaynaa wareegii ugu dambeeyay waa wareegii saddexaad saddex wareeg aan ka sameynaynay push workout aan sameynayna waa wareegan ugu dambeeya okay waxaan kusoo xirayaa hal exercise oo trapiska ah yani horta muruqyadaas kore From the east side of America, where we live by the very down. From the east side, this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where the thin lies in the very down. We can big side, this is us, this is us, this is. Don't realize it when everyone protects and fights. Are we all set? Yes. okay asxaabta waa soo dhamaysan workout-keena hadda jimka soo baxnay push workout waa kaasa isku day haddii aad weligaa sameyn exercise noocaasa okay haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe dheh gambalaalka daaro si video kasta aan soo gelin aad u aragtid okay staanteenu waa calool iyo caato damba maya waa inoo markaa